السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي قارقة وإيمة السلام دمانتين وولاشين شان ولا بحذي شطورة جنال وحنا كعد سنة ولا عليه صب أنا سبسكرايب كإيه المعمل كل ورنا ولا جوجي وأكون مهتمين سي شرفت لا أنا ولا سعطان إن شاء الله تعالى وإيمة السلام دمانتين سعودنتين ما أنت أدي إلهي نفتي وسمع والنفط باقي إلهي إيه قد يقول حرب إنا كهله وحاجة قبل بدن oo maxay ahayd social media haday Facebook tahay haday Twitter tahay haday YouTube tahay meel walba macnaha uga doodo oo ka hadla xuquuqda dumarka Soomaaliyeed ee uga hadlaan meel walba marka maanta waxaan rabaa inaad taabto dumarka Soomaaliyeed horta hor maxay tahay xuquuqda ka maqan haday ka maqan tahay ayaa ka qaatay oo loo raadiyaa aniga naftikeyga oo mana Facebook ay ku soo qorqoray arrimo noocaas ah waxa jira wiilal badan oo maxay ahayd si kulul ila hadlo dhahay maxay tahay xuquuqda sheegaysan oo ka maqan marka maanta waxaan rabaa inaan taabto hadii ilaahay hadda qoraal maanta way ka tagtay maanta waa video dhagaha aniga la rabaa maanta hadii ilaahay raali ka noqdo marka waxaan rabaa inaan isweydiino horta waa maxay xuquuqda dumarka ka maqan yaa ka qaatay maxay tahay waa nuucee horta xuquuq ma ka maqan tahay horta xuquuq ma leeyihiin ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo insha Allah taala hadii ilaahay raali ka noqdo dadka kaas wiilasha kasoo macnaha la falceli wax badan waxay dhahan xuquuqdu waa tii ilaahay idin siiyay waa tan kitaabka ku taalo waa tan xadiiska ku taalo xuquuq kale u doodaysiin maxay tahay gaala wax idin soo siisay fikir gaala wadiin fikir galbeeda idin ku shuban meel ay u socotiin dana leedihiin geed hoostiisa isku qarseen daayada hoostooda ka soo baxa iyo hadallo noocaas waxyaabaha aan kala kulmo ayay kamid tahay waxyaabaha noocaas marka aan ka hadlo barnaamij dumarka ku saabsan marka aan ka hadlo waxyaabaha ugu badan lagu soo falceliyo noocaas ay noqdaan iyo waxyaabo la mid ah hadii ilaahay raali ka noqdo marka waxaan rabaa inaan wiilasha sabto ay salaaman yihiin waan salaamaya yani wiilasha dhan ma ahan nimanka dhan ma ahan waa in yar oo kooban waxa su'aalahaas dadka markii macnaha laga hadlo ka xanaaqo amba ka kullaado amba su'aalaha xun ka soo farceliyo amba gaalada wax idin soo siisay iyo hebel waa wiilal yar waaye macnaha ma ahan dad badan oo maxay ahayd bisha amba wiilasha dhan madamin tali kara ma ahan marka waxaan rabaa inaan ilaahay yiraahdo taabta arrimahaasi insha Allah taala hadii alla raali ka noqdo wiilashaasna waan salaamayaa si qaas ah u salaamayaa waxaan leeyahay xanaaq iska dhaafa isdajiya gabdhihiin waaye insha Allah taala waa dhashan waan idin la dhashan sidoo kale ayagana waa idin dhaleen waan idin la dhashan marka waxaan leeyahay isdajiyo insha Allah taala waan rajeynayaa buuqa u dhaxeeyo rag iyo dumarka qaarkood iyo ragga qaarkiis maranka u dhaxeeyay iska soo dhamaan doona hadii alla yiraahdo dadkuna isfahmi doonaan qof walba waxa uu tabanaya laakiin qofka kale ayaan fahmeenin waxa uu tabanaya si aan hadda isleeyahay shatoor ahaan ama shacni ahaan aan isleeyahay marka waxaan rabaa inaan maxay ahayd maanta taabto maxaa keenay dagaalkaasi waxa jira gabdho sidoo kale ayagana markii laga hadlo wiilasha wiil wanaagsan amba nimanka saasa loo sameeyaa la dhaho xanaaqo ayagana dhiiga boqolka gaarabo dhunta kala go'da jira ayagana oo ma maqli karaan waxa soo kalaba nin saas loo sameeyay nin saas aan maqli karnaa jira sidoo kale wiilal noocaasna way jiraan maanta waxaan rabaa labadaas qaybood qayb dumarka kamid ah iyo qayb ragga kamid ah inaan la hadlo hadii ilaahay nafta baaqa iyo kaga dhigo waxaan ku hormarayaa qaybta nimanka hadii alla raali ka noqdo nimanka waxay dhahaan xaq idin ka maqan muxuu yahay xaqii ilaahay idin siiyay waaye xaq kala raadinaysin maxay tahay horta waa run anaga marka islaam nahay oo diinta islaamka laga hadlaayo dumarka ilaahay kitaabka iyo sunnada ku sheegay kitaabka ilaahay quraanka ku sheegay rasuulkana sunnadiisa ku hadlo xadiis badan jirta oo ka soo aroortay marka waxaan rabnaa inaan ka hadlano horta dumarka xuquuq ka maqanta dumarka Soomaaliyeed markii la dhaho intii maxay tahay guud ahaan marka laga hadlo xuquuq ma ka maqan tahay aniga shugur ahaan marka ka hadlo way ka maqan tahay xuquuqda ay ka maqan tahay hada idin sheego amba idin taabta xuquuqda ka maqan maxay tahay koo waxaa ka maqan horta dumarka dhan ma wadahan dumarka qaar waxaa jira baraariyo bashbash ku nool iyo qaar iska dhibanaa jira markii yani waxyaabaha noocaas laga hadlaayeen kama turjumayso in aniga nafsadeeda ka hadlaayo kama turjumay dad badan waxaa jira ku dhahayo dhibkaas hadduu ku haysto walaal si kale u xali nimanka saasaa dhihin aniga dhib ima haysta alxamdulilaahi rabbil caalamiin laakiin waaqica jiraan ka hadlaynaa iyo guud ahaan ummadda sida wax u dhacaan aan ka hadlaynaa markay saas tahay shaqsi kama hadlayno adiga kama hadlayno ana iskama hadlaayo gurigiina kama hadlayno gurigeena kama hadlaayo waxaan ka hadlayaa mujtamaca guud iyo sida ay u dhaqmaan Soomaalida iyo dhaqankeena aan ka hadlaa insha Allah taala Allah musta'aan waxa jiro dumar badan waxa jiro adduunka isaga dhiban haday qurbo tahay haday Soomaaliya tahay
hadday Afrika kala tahay waxaa jira dumar badan oo isaga dhibanaa jiro tusaale hadda idiin soo qaado maanta suuqyada waa arkaysaan ugu suuqa Bakaara oo Soomaaliya Muqdisho ku yaalo amba suuqa Garowe ku yaalo amba kan Hargeysa ku yaalo amba kan Kismaayo ku yaalo intaba u fiiri waxa dhooban waa dumar Soomaaliyeed midda dambiisha wadato midda yaayada goobaysa midda hilibka gado midda dharka dhaqdo midda biyaha ararto midda caruurta maxay ahayd intaas waxay u badan yihiin waa dumar يعني marka asaas leeyahay kama wada nimanka wax ma qabtaan kama wado laakiin waxaan ka hadlaa dumarka had jirta nimanka ma hadlaayo dumarkaan ka hadlaaya waxaa jira saas waxaa jira dumar badan oo dhibaatadaas iyo faadkaas u marayaan caruur ay ayagu dhaleen inay koriyaan amba agoon ha noqdaano amba aabood ha noolaadaan marka aan si kala qaadno cunuga markuu agoon yahay aabihiis oo dhintay uun hooyada bis xaq ku leeyahay because aabihi xaqis waa go'aaminka oo dhintay waxa kaliya uu xaq ku leeyahay waa hooyada laga rabaa inay maxay ahayd hadii Ilaahay yiraahdo ay wanaajiso u shaqeyso wixii Ilaahay ugu soo dhiiban ay siiso Allah musta'an waxa ku saaray midka aan agoonka ahayn laakiin agoonka wax dhaamin ajiro mid waxa jira agoon aan ahayn aabihiis nool yahay laakiin agoonka aan wax dhaamin ayaa jiro marka kaas aan rabaa inaan si fiican ugu istaago hadii Ilaahay yiraahdo horta quraanka iyo kitaabka iyo sunnaha inta waxay ku sheegan inay mas'uulka reerku uu yahay aabaha hadii caruur tahay hadii hooyo tahay hadday marasho tahay hadday masruuf tahay haddii wax la cunayo ay tahay haddii xanuun yahay wax walba oo loo baahdo oo gurigaas looga baahdo inuu aabuhu mas'uul ka yahay ayay diinta islaamka qabtaa haddii labada qof ay kala tagaan oo ninka iyo naagta ay kala tagaan oo caruur ay meesha taalo hadduu aabuhu hooyada intuu wanaajiyo oo caruurtaas wax ku siiyo ay hooyada haysatana waa wanaag hadday aabihii caruurtiisa oo qaato oo korsadana waa wanaag iyo waajib isaga lagu leeyahay laakiin waxaa jirta laba shay oo labadaasba ahayn waxaa jirta laba dhaqan oo labadaas ba ahayn jirto waxaa jirta hooyo caruur lagu furay odayga dhalay uu 20 jir yahay oo ayada ka feeran yahay kana xoog badan yahay magaaladu iska xarakoona iska laafiyoonayo ha ahaatee iska laafiyoonaana iska xarakooday oo san dib dambe caruurtaas u soo feerinaynin hooyadii la kofeyso hooyadii la kacayso hooyadii korinayso asaga habeen banaago iska guursana magaaladiisu iska raaxaysanaya hooyadii markii caruurta koriso ay la kofta ay la kacday caruurta weynaadaan bari wuxuu rabaa wax dheefka caruurtaas inuu la qaybsado wax dheefka caruurtaas inuu la qaybsado rabaa bari asaga oo haba yaraatay wax xaq amba xuquuq caruurtaas uu ku leeyaysan jirin oo hal habeen u qooqana uu ka dhalo hooyadiis markaas wuxuu rabaa bari inuu la qaybsado xaqi waalidnimo ayuu rabaa walow ay maxay ahayd ii sheeg quraanka iyo maxaa lahay sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee ragga aabahay hooyada ay kala xaq badiyaan hase ahaatee dhaqankeena Soomaalida waxaan ka hadlaynaa horta dulmiga ugu badan dumarka laga galo waa taas hooyo caruurtii lagu inkiray hooyo caruurtii looga tagay aabihiiba nool yahay iyo inkirin hadduu rabeen nool yahay magaaladiisa iska xamaalinayo naag kale iska guursanayo maxay iska baashaalayo hooyadiina waxaa arkaysaa gabar aan 30 sano gaarin ya oo 3 caruur amba 4 caruur amba 5 caruur lagu furay maxaa dhahay hadii aragtid aaslada waa konton jir konton maxaa uga dhiman aaslada ya because waxay la rafaaday qotul yoomka ilmahooda waxay la dugsiga haday iskuulta haday karata haday marashada haday wax walba tahay ayada dusha saarat waa mas'uuliyadda odaga laga rabo xataa haday kala tagaan mas'uuliyadda ilmaha asaga saaran tahay mas'uuliyadda ilmaha asaga saaran tahay marka wuu iska hilmaamay magaaladiisu iska mashruuxa asoo calal kuusan shaqadiisa ma ahan meelahaas wuxuu iska fadhiyaa maxaa la isha fadhiyo ku dirarada markaas dumarka kale asaga uu isdhiila leh caruurtii oo dhalane war iyo wacaal uma hayo meelna kuma sheego caruurtiisina meelna kuma sheego ya marka hadhowtii unto meesha fadhiyo ku dirarka soo istaaga asoo us dhuuban oo wuxuu leeyahay dumar waxay tartaa naagu maxay tartaa oo meeshaas ka leeyahay war naag waa tii ku dhashay ilmihii aad dhashay adiga ee Ilaahay mas'uuliyadda ka saaran inta uga soo tagtay korinayso ya laba mas'uul isku haysta dhashay hadana korinayso ya adigana meelaha afka taagaysid waxa haysa ay si jirin ya oo iskuul iyo dugsi iyo guri iyo wax walba dileeyado maxay tahay ayada dul saaran tahay hay markaas waxa meelaha la fadhisaa dumarka maxay yihiin hay dhibaatada horta Soomaalida ugu badan waa taas u fiirsa ilmaha Soomaalida yar iyo weyn u fiirsa hadaa tira abtiga iyo adeerka ka jecesha abtiga ay ku leey habariyada iyo eedada ay jecesha tira habarta ay ku leey maxaa sababay aabihi oo ilmihi ka warqabin حتى هدو حتى فرين أو هذي لجوا علمية كم ورقة دكسي أيضا جينا معلن كلا سويشينه إسكول كأيضا جينا معلن كلا سويشينه كرده جروج أيضا سويشينه كرده مركل لا بعد دي بس
wax walbo ayadaa dusha saaranayso asagu lacagtaas unba soo shaqey waa kan ugu fiican oo dhahay allahuma nin waaye kanoo kale lama helo waa kan ugu fiican yaa ugu fiican aan ka hadlayna oo dhahay alla hebel waa nasab ilmihiisoo korsada la leeyahay kan kalene iskaba day warkiisaba kaasi maba tirsanaba kan kalene haye markaasa waxaa leedihiin dumarka xuquuqda ka maqan maxay tahay dumarka xuquuqda kitaabkaasi war tii kitaabkii siiyey adig ma nigala helay haye aawa tii kitaabkii siiyey haye mase afka unbaa laga sheegaa aniga maantana haddaa dhaho salaada kitaabka qur-aankaa sheegay salaada waa waajib diinta islaamkaa sheegtay oo aanan dukanaynin maxay sheegaas taraya haye sheega muxuu taraa aniga maantana haddaa ku digriyo inta meeshaan fadhiisto salaada waa waajib oo anigii aanan dukanaynin amba anigu aanan samaynaynin ficilkii salaada maxay taraysaa salaada waa waajib maxay soo kordhinaysaa haye wax ay soo kordhinayso ma jirto laakiin markaan salaada dukado oo sida laga rabo aan u dukado oo camalfalkeeda aan la imaado oo khushuuceeda aan la imaado oo waqtigeeda aan dukado oo weesaqaadka dahaarada aan ilaalisho waa dhihi karaa markaas salaadu kitaabkay ku qoran tahay marka nimanka Soomaaliyeed waxa waaye xaq dumarka kitaabka ku qoran yahay waa afka bisle laakiin dhaqan ma jiro dhaqan wax la yiraahdo ma jiro waa iska afkaas un baa laga sheegaa waxa kale oo ku soo haray ayadana oo dhibaatada ugu badan oo jirta ay tahay waxay tahay hadda waqtiga aan joogno waqti xaadirkan aan joogno 18 iyo 17 iyo 19 hadda aan ku jirno wixii hore iska daa sanadadii hore iska daa 1990 hebelki iska daa 2000 iska daa 2005 ka soo gudub now aan taaganahay waxaa jirta cadiyo badan oo gabdho loo geystay jiro waxaa kamid ah Puntland waxaa kamid ah Guriceel waxaa kamid ah Dhuusamareeb waxaa kamid ah Xamar Muqdisho kamid ah ya Hargeysa sidoo kale ayadana laakiin meelaha ugu badan aan maqalno waa intaas aan ka soo qabtay Puntland aan ku hormar Puntland waxaa jirta gabar yar oo 12 jir 13 jir waxay maqaan Aisha la dhahay Aisha saddex nin oo waaweyn oo midkaba aniga iga weyn yahay ay kufsadeen barqa 6 saac ay gooriceen hilibkeedina jarjareen waa wada ogtiin wax ka qarsan ma jirto gabadhii markii saas la yeelay nimankii la soo qabtay oo nimankii la keenay maxkamadda ilaa jasna oo maxkamadda waxay ku jiraan xabsiga waa niman dambi geystay oo kufsi geystay waa niman dil geystay waliba dil arxan daraa geystay maxaa lahay afkooda ay ka qartaan inay dambiga galeen qaarkood kuwa kalena way isaga cadahaba okay markii ay saas dhacday ee warkii ku cadaaday nimankii sharciga islaamka muxuu ka qabaa dadkaas sharciga islaamka bal ina rogow nimankaas wuxuu ka qabay ma ii sheegi karteen yaa ku fuliya kan maxkamadda u fadhiin waa nin kan maxay taxakunka u hayo waa nin kan dilkina wali laga rabo waa nin kan tacadiga geystana waa nin marka sharcigii hadda gabadhaas haweenkay ka mid tahay dee nin maahane marka xaqa iyo xuquuqda aad ka hadlayseen ka soo gudub waxaa jirta gabar kale ayadana meesha waa iga maqan tahay Ridwaan la dhihi jiray meesha waa iga maqan tahay magaceeda oo ayadana sidoo kale waa gabadhii ugu horreysay horta video laga soo duubay iyadoo la kufsanayo ayadana u malayna Ridwaan gabadhii yareed inta la kufsaday ee video laga soo duubay ee jirkeeda la jarjaray nimankii inta la qabtay oo 4 ul saas inta lagu siiyay 4 ul oo waxba hadda ka tirin oo lacag jira waxba macna lahayn lagu xukumay wadankana ka baxday maalmo ka bacdi iska soo baashaa la soo laabtay leeyri waa wada ogeedeen wax idin ka qarsan ma jirto cadaaladii gabadhaas ma cadaalad lahayn diinta islaamka ma cadaalad siinin diinta islaamka cadaalad ay siisay gabadhaas cadaalad ay diinta islaamka siisay ii sheega bal adinka idin weydiina yaa meel ku sheego cid meel ku sheegta ma jirto maalmo un baa la wadwaday garowaa la geeyey isbitaalaa la geeyey waxbaa la dadaaweeyey bes khalaas gabadhaas waxay ku nooshaa cuqda nafsi waxay ku nooshaa ciil waxay ku nooshaa darxumo waxay ku nooshaa maxaa lahay facshir dadkii oo Soomaaliyeed gabadha dhibka loo geystay waliba sii fadeexaynayaan dabeecadaha ay leeyihiin dumarka Soomaalida ay ka mid tahay qofka dhibanaha ah ee dhibka loo geystay in la sii fadeexaysto oo la yiraahdo maxay aad ii sheegeen la yiraahdo waa gabar saas iyo gabar la kufsaday waa gabar kan halka dambiiluhuna oo ka yahay nin sharaf leh dambiiluhuna oo ka yahay nin sharaf leh ka soo gudub waxaa kaloo jirta gabar ayadana sidoo kale Guriceel lagu geystay kufsi ee video laga duubay markii maxkamadda la soo istaajiyay ninkii sheeqay meesha fadhiyo oo ku xugmiyay in ayadu raali ka ahayd in ayadu raali ka ahayd oo ku xugmiyay afar shil inta la sii nimanka la ordaha magaalada ka baxa haddii ayadu raali ka ahayd waa looga bixinaa magaalada ayadaaba raali ka ahayd ma la iska dhaafo ilaa ayada raali ka ahayd soo maha inta afar kale baa saas lagu siiyey sidoo kale waxay ka dhacday ayadan Dhuusamareeb sidaasoo kale ka dhacday ayadan Muqdisho ka dhacday Muqdisho horta xisaabba ma leh
meesha muqdisho la yiraahdo adna isma xisaabis adna wax kamid sama keento gabdhaha lagu kufsadaa waa lagu dilaa xubnahooda lagu gataa cid wax iska weydiiso ilaahay abuurtay oo koonkan ku nool maba jirtaba kuwaasi cid wax iska weydiisa ma jirto yaa cid wax iska weydiiso ma jirto gabdhahaas haye marka waa yahay hadday xaalku saas yahay maxaad u leedihiin marka xuquuqda idinka maqan maxay tahay xuquuqda idinka maqan maxay tahay yaa xuquuqda idinka qaata balaa maxaa meelaha ula taagantihiin nin sheegi karti maxaa ula taagantihiin war gabadha intuu nin guursado iska baxadda meeshaan xaafadda inaan ka dhacday laba caruur uga tagay dib dambana uma soo fiirin telefoon una ka qabanaynin meel walba uu ka bedeshay Facebook uu ka bedeshay telefoonadii uu ka bedeshay caruurtii bartaan la fadhiisay la oonaysa ma waysan xaq lahayn ilmaha baasiya ka dhalay jinni wala xawla yaa dhalay ilmaha yaa dhalay ilmaha cid dhish ilmaha cid ka mas'uuliyad masa maxaa la isha dumarku baa miskiina miskala fule haye nina gabar ka tagaayo gabadhiisii reer u degan uu ka tagaa Yurub oo iska aadaan ba Ameerika 10 sano iska maqnaana 10 sano gabadhi halkaan ugu xayiranta markaas uu hadhowtiin meeshu dhila alla ilaa gabadhan way ii sabartay una kala guursana waliya taas waa daqowde mid kale aan guursana marka xaq mala ayaduna waa naag iibaan daramay ninkeeda sugtaa leeyahay adashan maxaa ku dhagan soo biil kuma sii ma sugtid adoo biil ku sii maxaa ku dhagan haye xaq kale ninka ku leh ilmahan wixii mas'uulka ka ah xagee aadeen yaa ay qaan meesha aadeen meelahaas ilaa naag isagala baashaala naagta markay heshan waxaa leeyahay naag waalan oo gaal lacag soo siis maxaa beenta la isugu sheegaa walaalayaal maranta laga hadlo maxaa la isku xaqiraa ya dumarka markay yar yihiin waa la dhibaa markay weynaadaan waa la dhibaa siday u badan yihiin aniga kama hadlayo dumarka dhan haddaa adigu gabar ay barwaaqo ku nooshahay waxaa jira kumanaan gabdha aan barwaaqo ku nooleynaa jiro ha ii soo qorin aniga saas maaha gurigiina kama hadlayo aniga haddaa adiga barwaaqo ku nooshahay waxaa jira gabdho badan oo barwaaqo ku nooleen haddii adiga odagaaga kuu toosan yahay waxaa jirta 100 gabdhood odagooda u toosneen haddii adiga reerkiina kuwa cadaalad fal ay yihiin waxaa jirta gabdho badan oo cadaalada loo falay kuwaasaan u hadlaynaa annaga mana aamusayno ilaa laga helo wadada saxda oo runta ilaa laga helo ma aamusayno saasaan u hadlaynaa una soo taagnaanayna haddii ilaahay raali ka noqdo ma aamusayno markaasaa gabadhii hadasha waxaa leedihiin diintaa ku siisa xaqaagii maxaa kaa daldansiina war diinta xaqay siisa xagee kaysa diinta xaqay siisa haye adaan ku weydiina mase diinta afka un kasoo sheeg waay afka kasoo sheeg miya diinta afka kasoo qab ya wallaahi bilaahi adduunyada dhanna waxay iska noqotaba iska soo horjeed adduunyada waxay noqotay iska soo horjeed ya waxay noqotay iska soo horjeed waxay noqotay isku hor cadiban ya marka haddii laga hadlo mujtamac laga hadlo dad waxaa jira ayagana laga hadlo isku maleeyo sujuud ma aqaan waxay ka wadaan ay kugu soo duufay ku dhahay aniga saas miya inuu adika ama hadleena anaga gabar ay adika ama hadleena wiil adika ama hadleena waxaan ka hadleynaa dadka dhibka haystaan ka hadleynaa adiga haddaa barwaaqo ku nooshahay ummadaan barwaaqo ku nooleynaa joogto adiga haddaa bashbash iyo nolol fiican haysato dadaan haysanaa jiro adiga haddii ilaahay nin fiican kugu soo aadiyo midaan nin fiican haysanaa jirto una baahan inta farxada adiga rabtid farxadda adiga aa u baahantoo kalena u baahan laakiin aanan haysan aa jirto ya marka adaan kaa soo qabanaynaa miya adiga barwaaqada haystaan kaa soo qabanaynaa ayagana waxaa waaye warkooda kuma jirnaba sorry kaamiradaa ka dhacda ya ayagana hadalkooda kuma jirna miya taas maan sameynaa ma soconayso taasi ma soconayso taas waa la diiday gabdhihii Soomaaliyeed waxbay fahmeen indhihii u furmay indhihii banaanka keensadeen war ma galo haddii adigu aan nin toosan tahay oo nin fiican aad tahay oo mid ilaahay xaq ilaahay saar dhowraya aad tahay waxaa jirta boqolaal aan xaq lagu lahay ka soo bixinaa jirto boqolaal waxaa jirto aan xaq lagu lahay ka soo bixin shaqana aan ku lahayn shuqulna aan ku lahayn ee meesha la soo taagan ilaahay xaq sii xaqaaga hayso kii ilaahay sii iga qaadatay markaas ay weydiinayaan mid kale kii ilaahay aniga isii iga qaadatay markaas ilaahay xaq ka maqan maxay tahay muxuu xaq iga maqnaa way wuu naga maqan yahay xaq wuu naga maqan yahay aniga inta dulmana u hadlaaya inta dumar dulmana u hadlaaya mid raaxa ku jirta shaqo kuma leeyani
shaqo kuma limana matalo tan raaxada ku jirto waxaa matalaa midda dulman waxaa matalaa midda rafaadsan waxaa matalaa midda dhiban kuwaas aniga matalaa waxaa kuu saaray ayadana sidoo kaleet waxaa jiro horta barnaamijka inta kuma koobi doono insha allah qaybo badanaa u yeeri doona haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa kaloo jiro dumar ayagana waxaa jiro markii laga hadlo nin wanaagsan ayaguna xanaaqaa jiro yani tusaale marka la hebel waa nin fiicana waa saas casarada ku kacdaa jirta ayagana oon maqli karinba arka kasoo dhacaya dhahay see ku dhici kartaa kuwaasna waxaan leenahay walaali hadduu adigu nin xun ilaahay kuga aadiyay oo gabadha nin fiican ilaahay ku aadiyay ilaahay ha u barakeeyo iska daa ha ku daba dheganaanina hadduu ilaahay adiga mid xun hadda ka hor ku tusay amba aad aragto xataa ku guursanood meelaha ku maqashay oo dhowr nin oo xun soo aragtay dhowr kaloo fiicanaa jirto dhowr nin oo kaloo fiicanaa jirto haddii gabadhan walaashaa nin fiican ilaahay ku aadiyay ha iska faanta iska daa ha ku celin faanka ha ku celinin ha ku nafista faraha ka qaad marka nin wanaagiisa laga sheegana ha xanaaqin ilaa nin iyo naag waa laba shay ilaahay isku abuuray waa laba qof oo ilaahay isku abuuray maxaa lahay waa laba jinsi oo ilaahay isku abuuray isaguna tala galay gabadha nin kama maaranta ninkana gabar kama maarmo noloshaa ku dhisan intaas in la isguursado wax la iska dhalo noloshaa ku dhisan marka xanaaqin haddii aa barnaamij noocaasa maqashay gabaray adiguna iyo xasarada kugu kicin caadi iska dhig yaa caadi iska dhig gabdho waxaa jira ka hadla xuquuqda ragga iyo dumarka ay isku leeyihiin oo badanaa soo qora nimanka saas u samey ninkaaga saas u samey ninkaaga saas u samey soo qoraa jiro dad badan waxaa jira kafal celiyo oo ka xanaaqo sideedaba markii xuquuqa laga hadlaayo labada dhinac waa inaa ka hadasha amba iska aamusta labada dhinac waa inaa amba ka hadasha amba iska aamusta because qof aan xuquuq lahayn ma jirto wax walba oo nool adduunka korkiisa ku nool xaq iyo xuquuq ay leeyihin xayawaanka xaq iyo xuquuq leh oo ilaahay banin inaan lagu tasarrufin oo iskeersa loo dilin oo maxay tahay baahi lagu dilin oo oon lagu dilin oo la rafaadinin xayawaanka ilaahay xaq siiye iska day noolo bini aadan oo ilaahay karaameeye iska day kaase haye marka waa ihee xanaaqin markii oo laga sheekeeyo bini aadanka maxaa nimankii naaga waxay isku leeyihin marka laga sheekeeyo adiguna gabar ayaa xanaaqin maxaa u xanaaqaysaa xanaaqin xaq waa wax jiro waa wax la isku leeyahay laakiin waxaa fiican hal xaqa sida hal dhinac looga wado burbur un baan kasii dhaxalnaa qoysaska maanta waxaa arkaysaa 17 jir ilmo lagu soo furay waxaa arkaysaa 20 jir ilmo lagu soo furay waxaa arkaysaa 15 jir ilmo lagu soo furay waxaasoo dhan waxaa u sababa xaqa halka dhinac laga sheegayo hay waxaa leeyahay ninka saas u sameey ninka intuu istaag ninka kan u sameey albaabka u taagnaa kabaha kasoo siib dharka u geli cuntada afka u geli gacmaha ma ka go-aya ninka gacmaha kama go-no ninku gacmuu qabaa ya inta ninka loo sheegaya ka badan ay gabadha u baahanta waa hooyo wax dhalayso waa hooyo waxbay dhalaysaa way dhafraysaa hurdalaana ku dhacayso intaas asaga intuu qabana in ka badan ayuu qabataa asaga markuu shaqada kasoo baxo banastaa yidhaa ilmaha kaala iga bixiya ayada cidna kama bixisa ilmaha habeenii maalin dushay ka saaran yihiin xaqay ayadu leedahay soo ma ayada naftigeeda xaqay leedahay marka ma ahan xaq inuu hal dhinac ka rarnaado oo la yidhaahdo nimanka saas ha loo sameeyo nimanka saas naagahaas waa nagu soo bateen maalmaha naftirkooda laakiin videoga dambe uga hadli doonaa naagaha noocaas ayagana haddii ilaahay nafta igu simo marka waxaan leeyahay maxaa lahay rag iyo dumarba ilaahay baa isku abuuray yaan la kala xanaaqin markay gabadhu ka hadasho xuquuq dumar ninkii xanaaqin uusan dhihin gaalaa kasoo qaadatay lacagaa lagu siin wax lacag siiyaa maba arkinba wax lacag siiyaa ma arkin marka adiga haddii aad aragto wax lacag siiyaa adiga kuu taalaa taas waa goonideeda laakiin markay gabar hadasho oo danaheeda ay ka hadasho hala soo boodin maxaa ka hadashay waa gabar waa tii xishoo jirta gabar waa tii aamusi jirta gabar waa ha dhihin maxaa ugu celinaa naafta ku celin naafta ha hadasho ha nafisto xishoodka rag iyo dumar laga rabaa waa iimaanka barkiisa xishoodka dumarka kaliya ha xishoodaan lama dhihin ninku ha xishoodo oo gabadhu ha xishooto oo wixii xumaana laga xishoodo wixii wanaagana ha la sheego marka ma waxaa rabtaa in wixii xumaana laga aamuso oo laga xishoodo wixii wanaagana laga aamuso oo laga xishoodo amba waxaa rabtaa wixii xumaana in laga aamuso maxay wixii wanaagana la sheego saas ma rabta taas ma soconaysa hadaa rabto taas hadaa rabtiin tu soconaysa ma ahan xumaanta haddii arkaa laga hadlaa la sheegaa si aysan xumaantaas usoo laabanin maalin kale aysan usoo laabana laga hadlayaa haddii wanaag yahaan wanaaggaa la sheega si beri qofkaas wanaag sameeya loogu daydaa la sheegaya aamus wax la yidhaha way iska dhamaadeen hadda kabacdi waa in la hadla gabar walba oo dhib ku dhacaa gabar walba oo dhib haysta waa inay hadashaa inay aamusto xaq uma lahan inay aamusto markii dhib kugu dhacane inaa aamusta xishood maahan dhib markuu kugu dhaco inaa hadashadaa kuu fiican inaa hadasho dhibkaaga sheegatid cadaalad waa intaasoo cadaalad ku heshaa waa intaasoo gabar kaloo facaa gayaankaaga aysa dhibkaasoo kale ku dhicin soomaali waxay taa dabniga ku dhaca dambastuu ka cararaa
bari ka maalin gabar gayaankaaga aan dhibkaas ka digtoonaanayso digtoono u ahaanaysaa laakiin maanta marka aad dhibka ku dhacay aa qarsato bari mid kale oo facaya ku dhacaysa dhibkaas oo kaleeto ayada way aamusta mid kale aa kusii dhacaysa dhibka ku dhaco kaleeto marka maalin walba waxaa loo joogaa dhib unti mid qaaraysa mid kale kusii dhacdaa loo joogaya wax fiican ma ahan wax fiican ma ahan qof walba waxaa fiican inuu ka hadlo dhibka iyo xanuunka haayo inuu ka hadlo ayaa fiican si daawo loogu helo saasaa fiicdaa maanta ana iska aamuso oon cudad kuu qabo oon rab inaan faylaha kaa gooyo oo meesha indhaha inta bidix kaaga siiyo aan ku dhaho waa fiicanaha iyo qeyr berri markaan jaanas ku weyn labada faylood kaa gooyo wanaaga ma ahan wanaagee ma ahan wanaagu waa inuu qof walba dhibkiisa ka hadlaa waa inuu dhibkiisa ilaahay u sheegtaa waa inuu dhibkiisa dadka u dhow u sheegtaa waa inuu ehelkiisa u sheegtaa maanta gabar hadduu dhibka ku dhaco waaridkaaga la wadaag waaridaa ku dhala walaalaha ku dhala la wadaag ha qarsanin waxaa qarsato waa kuu kaliga yaa marka ma ahan in la yidhahdo gabdhuhu yay hadlin ma aha in la yidhahdo xishoodkaa laga tegay ma aha in la yidhahdo diintaa laga tegay maanta adduunyada aan ku noolnahay xaalkeeda cid walbaa ka warqabto adduunyada aan ku noolnahay maanta seetaa cid walbaa ka warqabto marka wixii dhibahoo jirane waxaa fiican in la xaliyo iyadoo afka la isqaban oo cunaha la isku dhegin la aamus la isdhihin ayaa waxay fiican tahay in wax walba la xaliyo gabadhan hadduu dhib haystane dadku ay u kacaan ay arkaan dhibkeeda haddii ay gabadhaani maxay ahayd iisha wanaagsan tahane wanaageeda lagu dhiirigeliyo midda wanaagsan markay wanaag ka hadasho waxaa laga yaabaa tan xun inay ku daysato wanaagga gabadhaas adigo gabadhay markaa wanaagsan tahay waa inaad wanaaggaaga sheegtid si gabadhaan berri kugu daysato israaciil ay leedahay gabadhaas way najaxdee adiguna najax oo meesha gabadhaas ay gaarta gaar laakiin markaad tiraa gabadha anu waa aamusa hadli maayo dhib hadduu igu dhaco hadli maayo wanaag haddaan sheega hadli maayo neefta aan isku celiha haddaad tiraahid waxaa ogaanaysaa haddii xumaan ay ku dhacdane yaa midda kaa dambaysaa ku dhacaysaa yaa adigana kaa suuli mayso cadaaladna heli maysid yaa inkastoo soomaaliya cadaalad ka jirinba haddii cadaalad ka jirta nimankaasaa maanta maxay tahay cadaalada saari lahaa oo dulmi loo jeedo oon qarsooneen ay ku dhaceen loo jeedo oo wax ka qarsan aysan jirin maanta ayaa laga qaban lahay wax ka qabtay cid wax ka qabata ma aragta cid wax ka qabata ma jirto because soomaalida dhexdeeda gabadho xaq kuma leh soomaalida dhexdeeda gabadho xaq la yidhaha ay ku leedahay haba yaraatee ma jirto runta markaa isku sheegnay oo beenta laga soo tago iyo barabagandaha laga soo tago yaa marka yani dad wanaagsan way jiraan mar walbana waan ku soo celshaa dad wanaagsan way jiraan laakiin mujtamacsa u badan yahaan ka hadlaynaa maanta yaa waxa waaye gabar xaq kuma laha bulshada waa inay aamustaa gabar dhib hadduu ku dhaco because waa gabar waa inay aamustaa gabar haddii dhib loo geysto because waa gabar waa inay sahadlin gabadhu because waa gabar yaa waa gabar haddii tacati ku dhaco waa inay aamustaa hadduu ninka dhibo waa inay aamustaa hadduu ninka dilo waa inay aamustaa waa inay sabartaa erayga sabar waa nacsi rabtiin erayga sabar ma aragtay aaba naga soo boodi rababa because gabadh dhiban waxaad tirahdeen sabar tii ninka dilo waxaad tirahdeen sabar tii ninka mushaar la-aan dhigay waxaad tirahdeen sabar tii mid kasta sabarka xadkiisuu dhaafay marka sabarku waa wax fiican laakiin xadkiisuu dhaafay marka waxaan leenahay gabaraya hadduu ninkaaga dhib kugu haayo ha u sabrin hana aamusin yaa hadduu dhib kugu haayo oo dhibkaasi dhib laga dhaqmi karin oosa yahay oo adigoo nafsadaada dhib kugu haayo ha aamusin waaridaa leedahay walaalaa leedahay ehelaa leedahay dadku dhalaa leedahay qabiilaa ka dhalatay waa inaa hadashaa oo tirahda dhibkaas ay haysto sabar kuma sabri karo xal ha loo keeno waxaa laga yaabaa ninkaas inta lala hadlo in xal lagaaga keeno laga yaabaa meesha aa ka aamusaysid ma fahamte because aamusku xal maba keenaba sidiisaba haye hadduu ninku kufsada ha aamusin because adaa dhibane ah adaa qalad lagaa gala adaa dembi lagaa gala adaa dembiile ma tiid ogow inaad dembiile ahayn oo dembi lagaa gala sabab aa u aamustaa ma jirto sabab aa u aamusto haddii maanta ninku kufsado hadaloo sheeg ha aamusin ha qarsanin gurigiina ha ka cararin duurka ha gelin xumaan kale ha sii samaynin ha isdhihin noloshii marbaa kaga xumaatay hore usii soco ha isdhihin noloshaada ha qarribin noloshaada gabarey ha qarribin ninka xun ee noloshaada xumeeyey dartiisa noloshaada ha u qarribin ka kabso waxaas ka soco hore uga soco u sheeg ehelkaaga iyo walaalahaaga haddii wax lagaaga qabto alxamdulilah haddii wax lagaaga qabo way cadaaladaro weligeeda iska jirta intaa iska aamusid oo noloshaada quruxsatid oo han weyn iyo han sare gaartid oo maxaad wax baratid oo shaqaysatid kii shalay ku xumeeyey markaas asagaa yaabayo because sababta uu ku xumeynaya waxay tahay inuu ku niyad dilo waa sababta uu ku xumeynaayo sababta xumaanta kugu geysanayo waa inaad niyad jabtaa
waa inaa qof xun noqotaa waa inaa duurka gashaa no ha sameynin saas ha sameynin saas ha sameynin hore u soco gadaal ha fiirinin xumaanta kugu dhacdana ha fiirinin insha allahu tacaala waa in wada salaamaya dhammaantiin caadi aadaan iin salaamaya dhowr video waan kasoo duubi doonaa arrimaha noocaan haddii ilaah yidhaahdo because facebookayga intaan ku qoraa boqolina waxaa arkay dhees xaqa idinka maqan muxuu yahay iyo aamus iyo maxay ahayd gaala wax kusoo siisa iyo daaha hoostiisa kasoo bixi rabtaa iyo geedaha hoostooda kasoo ku dhuumanaysa iyo wax aan isqaraaya ma jirto aniga waa ikan shukriyaa lidhahaa isma qarinayo alxamdulilah rabbi caalamiin islaamaa ahay soomaaliya ahay ismana qariyo ma fahmaysaa naag isqaris waan ka weynaa mana isqarin doono insha allahu tacaala wax walboo dulmiya na waa ka hadli doonaa walaa nina dulmiyaana ka aamusaynin walaa gabarra dulmiyaana ka aamusaynin qof walboo dulmana ma ka aamusaayo qof walboo dulmana kama aamusaayo qof walboo dhib loo geysta waa u hadlaaya insha allahu tacaala laakiin khaasatan arrimaha dumarka ayaan rabaa inaan si fiican uga falqay maadaama aniga dumar aan ahay qiyaasi karana gabadha dhibka loo geystay intuu la egyahay waa qiyaasi karaa soo ma marka gabdhaha u hadlo xuquuqda noocaasa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin laakiin hal dardaarna idin siina idinkana inaad bahasha baraxa ka badinina ya xuquuqdii inaad baraxa ka badinina oo bahashi aad baraxa ku dartiin oo xoogaa ka dhigtiin maxay tahay wax gabadhii ay nooc kala tahay amba gabdhihii xijaabada iska tuuraan amba gabdhihii iska qaawnaadaan amba xumaan un la sii falkiyo taasi faa'iido ma dhalayso marka wax waaninaysid oo rabti inaad wax ka hadashid ku dhiirigali gabadhu inay wanaag samaysato inay hore u socoto inay maxay tahay dharkeeda dhiganin ee is asturto because xijaabka ninkuguma lahan xijaabka ninkuma farin ilaahay yaa ku faray waa waajib waa aayad qur-aan waa xadiis ma ahan oo xataa ma dhehaysid waa daciif waa heblow iyo muranka ma keenaysid waa aayad qur-aan oo kitaabka ilaahay ku qoran marka gabdhaha waxaan leeyahay waa mahadsantii gabar walba oo fahamta dhagartiina soo marta gabar walba oo fahamta way mahadsantahay laakiin waxaa u sheega aan kusii dhiirigelinayaa inaysan anshaxa iyo xishoodka iyo kan dumarnimo iyo xijaabka iyo diintaba intaba aysan ka tegin ayadoo intaas haysatay hadli kartaa adoo xijaabana hadli kartaa adigoo xijaabana xuquuqda u doodi kartaa adigoo xijaabana dhibka lagu haya ka hadli kartaa ma ahan inaa aad tiraahid nin hadduu ku xumeeyo diinta dhan ay xumaysa aad tiraahid because diinta nin ma lahan ilaahay yaa iskale insha allahu tacaala waa idin salaamaa dhammaantiin insha allahu waxaan kasoo hadli doonaa barnaamijyadaas dhowr clipna waan kasoo duubi doonaa haddii ilahay nafta igu simo because wax laga aamusi kara ma ahan waa inaan ka hadlaa inta aniga aan ka ogahay amba inta awooddeeda iyo karaankayga insha allahu tacaala inaan ka hadlo waa idin wada salaamaa dhammaantiin saaxiibadeyda qaaliga ah aad iyo aad idin wada salaama waana mahadsantiin sida sharafta leh ee ay ila socotaan subscribe-ka ha iga iloobina like iyo comment iyo share ha iga hilmaamina waxaa idin leeyahay boqolkiiba boqol sida ay la socotaan ee sharafta leh waad ku mahadsantiin insha allahu tacaala barnaamijyada noocaana kama aamusi doono waan soo badi doonaa haddii alla yidhaahdo wax laga aamusa ma ahan waa wax la sheego haddii ila yidhahdo waxaan kaloo rajeynaya inay caaisha inay cadaalad hesho insha allahu tacaala nimanka caaisha dulmiga u geysta inay maxay tahay cadaaladda la marsiiyo sidoo kale magaalada muqdisho 4 saac tacdiida ka dhacayana in xal loo helo muqdisho tacdiida ka dhacay waa in xal loo helo insha allahu tacaala oo dumarka loo geysto oo dumarka lagu bahdilo in xal loo helaan rajeynaya insha allahu tacaala waa idin wada salaamaa dhammaantiin assalaamu calaykum haddaa idinka xanaajiye raalli ahaada haddaa wax fiican idin sheega iga qaata haddii aan qaldamane waa isixi kartiin insha allahu tacaala waa idin wada salaamaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh